السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام يا ميل والبا أديك داونيسان يسي والبا أو مركادي مغلسان با مقال كان وحين كوفلان قين دونا لبا أرمودو كلا دوون وحن مركو هربال أينو بال كل عبان دونا weerarkii la yaabka lahaa ee ka dhacay xerada General Jordan maxaa ka cusub oo information ah falanqayn kale aynu ku celin doonaa dhowr angal oo kale aynu ka fiirin doonaa iyo xogo kale oo markaa soo baxaya waxaan kaloo qaybta dambe aan uga hadli doonaa geeridii ku timaaday dawladnimadii Soomaaliya ayaduna falanqayn baan ka sameyn doonaa waxaan oran karayaa dawladnimadii afraad ee Soomaaliya ayaa dhimatay duugisteedii ayaa miiska saaran waxaan duugi doonaa Xasan Sheekh Maxamuud oo markaa asagu ay dhabarka u saaran tahay iyadoo meeda arintan oo falanqayn doonaa halka uu dalka u socdo iyo aragtiyo kale ayaan ka bixin doonaa soo dhawaada meel walba oo aad joogtaan iyo si walba oo markaa aad maqlaysaanba haddii aan ka bilaabo arintii weerarkii dhacay madaxdii la laayay Imaaraatiga ahaa ayaa waxa la sheegayaa ajandii ugu weynaa oo ay xamar u yimaadaan inay markaasi ahayd inay xaliyaan khilaaf u dhaxeeya dawladda Imaaraadka Carabta iyo Xasan Sheekh Maxamuud dawladdiisa madmadow jiray ay markaa doonayeen baa la yiri inay markaasi ay xaliyaan waxayna ahaayeen saraakiil sarsare iyo sirdoon markaa doonayay inay Xasan u sheegaan waxyaalaha ay doonayaan iyo waxyaalaha ay kala yihiin dawladda Xasan Sheekh Maxamuud waxyaalaha jiray oo madmadowgaasi waxa ka mid ahaa in mushaaraadka ciidamadii ay yiraahdeen anaga taabarayna anaga mas'uulka ka ah aysan bixinin baa mushaaraadkooda labadii bilood oo la soo dhaafay oo bishii December iyo bishii January sida ay xogu sheegayaan waxyaalaha inta ay ku dareen Imaaraatiga oo la helay waxa ka mid ah waxay yiraahdeen baa la yiri ciidankani mushaar ma siinayno way anaga nooma shaqeeyaan mana garanayno waxay qabanayaan taasoo macnaheedu ay tahay waa in ciidanku anagu noo shaqeeyaan anagu naga amar qaataan waa inaynu qorshayaashaynu doonayno ay ka shaqeynaynin lacag ma siinayno ayuu halka u dhacaya وهالكي سوماليدو كورن جرتين نين باهن غوب ما ciidanka iyagu wuxuu marayaan ay Imaaraadku yiraahdaan mushaar ma siinayno hadaysan anaga noo shaqeeynin waxyaalahaas marka waxa kamid ah waxyaalaha madmadoowaadka ahay meesha ku jiray tirakoob ciidan mushaar ka maqan yahay ciidamadaas waxay qabanayeen iyo in awaamiir kala la siiyo Imaaraadku ay doonayaan bay nimankan meesha u yimaadeen baa la yiri halka hawsha markay marayso in marka weerar qorshaysan saraakiishaasi sarsare ka mas'uulka ah dawladdaasi Imaaraadka Carabta oo sirdoonku ku jiro iyo ninka ugu sareeya qorshaha ay Soomaaliya ka leeyihiin in halka lagu dilaa waxay u muuqanaysaa xagga Imaaraadka markii laga istaagay u muuqanaysaa in halkaasi ka socoto qorshe markaasi nimanka lagu qaarajinayay oo aysan ahayn wax iska nasiib isaga dhacaynaysan ahayn dhanka Xasan Sheekh Maxamuud arintan waxay uga dhigan tahay musiibo ayay uga dhigan tahay wuxuuna hadda Xasan u muuqdaa nin sameynaya tilaabo walba oo markaasi uu ku qancin karayo 24 saac la soo dhaafay wuxuu Xasan qabay dharka qalinka ay dhaqaatiirtu gashato qalinka marka lagu sameeyo asagoo marba isbitaal u ordayay isbitaalkii la yiraahdo qof Imaaraati dhaawaca baayala ayuu marba tagay asagoo markii qalinka qaba si uu markaasi Imaaraadka ugu muujiyo baroordiiq iyo inuu ka xun yahay ugu muujiyo taasoo runtii musiibo ah madaxweynaha iyaga qaranka ciyaal yar Imaaraadku soo dirsadaan ay isaga dab wareejinayaan su'aalo kale oo badan ayaa ka imaanaya dhacdadani xiriirka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Imaaraadka u dhaxeeya muxuu noqon doonaa oo su'aasha ugu horeysa oo mataqaanaa la isweydiin karayo jawaabta Imaaraadka laga filan karayo oo arintan ay ka bixinayaan maxay noqon doontaa maadaama ayagoo madmadow ka qabay qorshaha Soomaaliya ay ka doonayaan iyo dawladda Xasan Sheekh Maxamuud inay arintan dhacdo maxay sameyn doonaan waa su'aal kale ayaduna isha lagu hayo waxaan kale oo hadda soo baxaya oo aan maqlayaa oo siyaasiyiin madax banaan aan ka helaya in la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu aadi doonaa Imaaraadka Carabta oo ku tagi doono safar qarsoodi ah oo dad yar oo kooban kulay qoyskiisa ah ay raaci doonaan sidii ay ku naqaan markuu Imaaraadka aadayo waxyaalaha kale oo la yaabka noqday waxa ka mid ah falkii meesha ka dhacay ninkii geystay oo warbaahinta markaa ay dawladdu la wadaagtay magaciisa nala soo sheegay ayay ummadii Soomaaliyeed si weyn ninkaasi ay u soo dhaweeyeen una taageereen hadda waa nin al-shabaab ka tirsan qorshay al-shabaab ku fuliyeen oo xeradaasi ka dhacay ayay shacabka Soomaaliyeed saacadihii la soo dhaafay u muujiyeen
taageero xoog badan oo markii ugu horeysay oo dhacdo al-shabaabku ay sameeyaan ay ummaddu sida u taageeraan halkaasi waxaa ku jira runtii arrin kale oo aynu u baahannahay inaynu fiirino al-shabaabka iyo shacabku israacitaankooda dabcan waxaa keenay waa imaaraatiga taasoo ayaduna aynu u arkayno ama loo arki karayo dee sida ay ummadda Soomaaliya imaaraadka ay u necab yihiin sida imaaraadka u diidan yihiin qorshayaashiisa inay taageeraan fal al-shabaabku sameeyay badarkaysa halka marka waxaa ku jirta fursad kale oo nimanka afka duuban ugu jirta maxay sameyn doonaan lama garanayo laakiin waa arrin kale oo ummaddu ay u baahan tahay inay ku baraarugto ama isha lagu hayo taa intaasaan ka sheegayaa dhacdaasi waa dhacdo aan oran karayo midii ugu weyneyd oo dalkeena ka dhacda oo dawlad shisheeye oo dalkeena faragelinaysa lagu sameeyaa ay arrintan noqota markaysan dawladaha kale dalkeena faragelinta ku haya sidaan ma loo beegsan doonaa mise isku soo aamini doonaan ayadana waa arrin kale oo isweydiinteeda marka ayaduna ay mudan tahay taa waa intaasi waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka labaad ee dhimashada dawladnimada Soomaaliya laga yaabaa title-ka dhimashada dawladnimada Soomaaliya inay xoogayaan strange tahay laakiin waa arrin waaqici ah weeye dawladnimadii Soomaaliya way dhimatay maalintii ay dhimatayna indhaheena ayaynu ku arkaynay waxana waa inuu ka qaban weynaa maybe inaynu xaq u lahayn inaynu dawladnimada difaacno maalintii doorashadii one man one vote ka ahayd la diiday oo meesha dhuusamareeb la yiraahdo lagu jireeyay in la aadi doono doorashadii dadbanayd maalinkaabay dawladnimadii Soomaaliya rajadii laga qabay maalinkaas harta la aasay xasan sheekh maxamuudna wuxuu dhabarka soo saartay ama loo doortay dawladnimo meyd ah oo dhimatay iska daa marka inay u shaqeysay xataa dawladnimo nuuxsanaysa ma aha waa xasan dhabarka u saaran cid walba oo meesha timaada oo la dooran lahaa sida xasan sheekh maxamuud haysata ayaa ku dhicday sidaan ugu aaminsanahay xataa haddii farmaajo soo laaban lahaa oo shacabku ay u arkaan qaybaha ugu badan inuu wax bedel lahaa waxaan aaminsanahay inay weli dhabarka u saarnaanay asaguna dawladnimo meyd ah waayo nimankii jasiira ku jiray haddii farmaajo soo laaban lahaa way dagaalami lahaayeen dawladnimo ma aysan yeeli lahayn midda hadda joogtana way kasii darnaan lahayd oo ummaddu way dagaalami lahayd oo ninkaa ma doonayno oo qabiil ah isbaare ah ayaa meesha taallay duu soo laaban lahaana waxa maanta yaala wax kasii daran baa dhici lahaa si walbaba haddii dani imaan lahaa saasaa dhici lahayd waxa dhabarka u saaran xasan cid walba oo meeshaan timaadaa waxa ay wax ka daran baa ku dhici lahaa waayo dawladnimadii waxaa la aasay waxay dhimatay waxay rajada ummaddu dhimatay maalinkii doorashadii one man one vote kay la diiday bay dhimatay waxaa sidoo kale maalinkii doorashada xasan sheekh maxamuud doortay la diiwaan geliyay in beesha caalamka nimankan xaalada ku jira ay yihiin cid diidan dawladnimadeena cidii xasuusata ayaa xasuusata doorashadii socota ayay hoolka dhexdiisa ka dabaaldegayeen saraakiil iyo dad ay imaaraadka carabta marka ay soo dirsadeen sidii ummadda Soomaaliyeed u dabaaldegayeen waa dawlad madax bannaan doorashadeeda ayaa dawlada ajaaniba meeshii la isku dooranayay ay ka dhex dabaaldegayaan dadku arrinta aad uma safiirinin laakiin waxyaalihii godka ku riday dawladnimada Soomaaliya number 1 imaaraadka ka aha maanta ma arkaysaan sida ummadii Soomaaliyeed ay koodii al-shabaabka ahay koodii caadiga ahaba ay isugu raaceen in la laayo oo dalka laga saaro si walba xasan sheekh maxamuud wuxuu go'aansaday marka dawladnimadii meydkii hay'adda dhabarka loo saaray inuu si qaab daran oo fal xun inuu markaasi u aaso ayuu xasan go'aansaday dastuur baa bedelaya madaxweyne ku xigeen baa sameeysanaya waxa la yiraahdaa laba xisbi siyaasadeed baan sameynaya 5 sano ka dhigaya waxa xasan sheekh maxamuud cid ka yeelaysa ma jirto dhaqdhaqaaqa xasan oo baarlamaanka hadda uu ka wado oo inta lala hadlay oo waliba laga waaniyay oo cid walba la hadashay xasan uu diido oo uu ku dhaqaaqa waxay ka dhigan tahay xasan sheekh maxamuud oo mandate-kiisa aan dhamaanin ma garanay intay gaari doonto in meel kale inta dalka la fariisto in dawladnimada Soomaaliya laga naqaashi doono bilowgii bana aan artan sheeg sanadii la soo dhaafay 2013kii horaantiisii ayaan arrintaas anigu saadaaliyay oo ii muuqata mar baan idin la wadaagi doonaa isla muuqaalkan hore arrintaas aan uga hadlay asagoo kooban baan sheegi doonaa ama soo sideen doonaa dhanka kale to waxa fashilmay dadaaladii ay maxamed farmaajo iyo sheekh shariif ay ka dhaxwadeen siciidani iyo ninka loo yaqaan xasan sheekh maxamuud waxayna xogo hadda sheegayaan in dhanka xasan sheekh maxamuud marka laga wadi waayay dadaaladaasi shalay ayuu shariif soo saaray waraaq asaga iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Khayre ay xasan kaga digayaan inuu talaabooyinkan uu joojiyo walina waxa socda inuu xasan go'aansaday inuu dastuurkii ummadda ka dhaxaysay uu laalo oo marka dawladnimadii ka dhigo wax yar oo asaga iyo reerkiisu marka ay leeyihiin si walba loo la hadlay xasan uu diiday arrinta waxa ka dhalan doonta marka in garow inta la tago xildhibaanadu ay kala qaybsamaan
marka garowna la tago laga naqaasho seen dowladnimo kale u sameynaa oo marka qaarna ay garow fariistaan qaarna ay xamar fariistaan ummaduna ay ku kala yaacaan wixii inta ka dambe xagee Soomaaliya u socon doontaa runtii ma aan garanayo humaag madow ayaa inaga horeeya oo aan la saadaalin karinin waayo wixii aynu ku shaqeynaynay oo aynu ku saadaalin karinay waa inta yar hadda la hayo dowladnimadaha intiina waa la burburiyay haddii la kala yaaco Soomaaliya say noqon doontaa runtii aniga iimaan muuqato sawirka ma arko waxana iimaan muuqda maybe ma qabiil baa loo kala degi doonaa maybe dalka la kala goosan doonaa maybe ma ashaab baa qabsan doonaa boqolaal possible scenario baa jira oo midda ugu macquulsan aan la garan karinin maadaama waxaan hore u arag ay tahay marka dalka runtii meel qatar oo madow oo mugdi ah ayuu ku socdaa waxaan ilaahay ka rajeynayaa meesha xaq ah oo dalka iyo ummadda Soomaaliyeed ba ilaahay ku aadiyo cadowga dalkeena iyo diinteena ku soo duuleena markaas ilaahay uu naga dulqaado intaas aan ku soo koobayaa aad baan idin salaam meel walba joogtaan assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh